بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسنا خيارتها وذا نقضى ونايساي إذ لهانتين با كسور دواذا وروحانو ذيكايني دافع عالمكا يدولالك الصومالي دا warkuna waxa uu idin ka imanayaa studio television ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiin doonaa intuu warku socdo aniga waxa Idris Cabdillah Ismaaciil Beershiya qodobada aad ku daawan doontaana waxa kamida Mareykanka oo liiska dadka uu doondoonaya ka saaray Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka tirsanaa al-shabaab injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wicid oo eedeymo u soo jeediyay mas'uuliyiin xilalka iyo xukuumadda iyo xisbiga wadani hay'adda Ikhlaas Foundation oo deeq kutubaha u qaybisay masaajido iyo malcaamado Quraan oo ku yaala magaalada Muqdisho goobaha lagu tukan doono salaada ciida ee xaafadda Isli ee Soomaalidu degto oo la shaaciyay kuwaasi waa qodobada wararka ugu doorka roon balse imikii aatana ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Mareykanka ayaa liiska dadka uu doondoonaya ka saaray Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka tirsanaa al-shabaab sidoo magaalada Muqdisho warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa markii ugu horeysay xanibaadda ama liiska shakhsiyaadka ay doondoonayaan ka saaray afayeenkii hore al-shabaab Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyadoo ay jiraan warar sheegaya inuu wada hadal kula jiro dawladda Soomaaliya si uu kaga baxo al-shabaab. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in liiska dadka la doondoonaya laga saaray Abu Mansuur oo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. Mr. Roobo oo ku jira da'da kontomaad waxa uu kamid yahay shakhsiyaad khibrad dheer u leh al-shabaab waxaana horey ugu safray dalka Afghanistan isagoo ka soo muuqday tababar ay la qaadanayeen saraakiil ka tirsan al-Qaacida oo qiyaas ahaan sanadkii 2010 ah kadib markii uu wax ku bartay dalka Suudaan. al-shabaab ayaa sanadkan lagu sheegay inay yihiin kooxaha ka dhisan Afrika kuwa ugu khatarta badan maadaama dilal badan ay geysteen sanadkii 2016 in ka badan 4200 oo ruux ayaa la sheegay in ay dileen al-shabaab sida ay shaacisay hay'ad daraasaad samaysay oo laga leeyahay qaaradda Afrika fadhigeedana uu yahay dalka Mareykanka. Abu Mansuur Roobo ayaa tan sanadkii 2008 waxa uu kamid ahaa dadka sida weyn Mareykanka u doondoonayo waxaana madaxiisa la dul dhigay lacag gaaraysa $5 milyan oo dollar. Koonfur Galbeed waxay soo dhaweysay go'aanka dawladda Mareykanka ay ka qaadatay Abu Mansuur Roobo waxaana la ogeyn talaabada xigta uu qaadi doono Abu Mansuur. waxaa la qiyaasayaa inuu hogaaminayo in ka badan 700 oo askari isagoo oo la sheegay inuu ku sugan yahay deegaan ka tirsan Koonfur Galbeed sida saraakiil laga soo xigtay. dhinaca kale ku dhawaad 4 sano oo shaqaalaha hay'adda MSF Spain ay ka maqnaayeen dalka Soomaaliya ayaa warbixin hay'adda ay soo saartay waxa lagu sheegay in shaqaalaha hay'adda ay dib kaga shaqo bilaabeen gobolka Mudug gaar ahaan isbitaalka gobolkaasi. deegaanada Puntland ayaa waxa hay'addu ay sheegtay inay ka wadaan ololaha lagu tallaalayo carruurta isla markaana looga hortagayo jadeecada iyo cudurrada kale ee carruurta asiiba inta badan. hay'adda ayaa muddo 4 sano ah waxay ka maqnayd Soomaaliya kadib markii ay ka cabatay waxyeello loo geystay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda oo caawinaad kala duwan ka sameynaya gobolada dalka Soomaaliya. Maxamed Ciise, Somali Cable, Muqdisho. gudoomiyaha xisbiga Wicid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa eedeymo u soo jeediyay mas'uuliyiin xilalka haya xukuumadda Somaliland iyo xisbiga wadani sida warbixinta warkaasi inuu diyaariyay magaalada Hargeysa wariyahayaga Faysal Maxamed Aadan Fiifa. injineer Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicid oo qayb ka mid ah warfidiyaanka kula hadlayay xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu si adag u duray xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Silaanya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga dhigiisa mucaaradka wadani isagoo tilmaamay in xiligan waqti aan loo baahnayn ay socdaal dibadeed u baxeen. waxaan leenahay nimayo iyo dalkan reer Soomaaliya hogaan madaxna ma leh siyaasiyiin ma leh sheekh ma leh suldaan ma leh shacbi ma leh wala idin talin insha Allah taala umada hadaan hogaan qaban oo loo talin oo xumaan sama la kala barin de warsayn ku noolahay ku noolahay maanta waxaan nasiimi anarkii bana siimin anarkii ma dawliyo ma sheegan karno maanta aad ogtahay wasiiro dhan way baxeen cimra la wada kuwii wadana waxa ka bixiyay cimradii Soomaaliya ka bixisay iyo 35 bay ku tageen ayay ka bixiyeen halkaas la isku tagay wasiirka caafimaadka shubankii oo socdo iska tagay Mareykan ووزيرك عافماتك
cid xukumaysaa ma jirto isdaasi government saasaa dowladnimo lagu noqda waddanka nimagu iska tegaya madaxweyne waan tegayaa fasax ma jirto gudoomiye waan tegaya ma jirto doorashada maanta haddii aynu tashan weynana idinkoo 60kiiba ka cabaanaysayna ka xun ayaa wallahi billahi ayna qabsan doontaa walaweyn waa la isku keen xeeray shaqool baa socda fal muqdisho ilaa badda socda ma ogin xoolahayna wadada waa laga joojiyay xadki baamishina waa laga joojiyay galaan meesha madaxweynaha maalintu waan u tagay intaanu bixin maalintu baxayaan u tagay laba qodob baan inta at least joogta soo saar mid waxa weeye qabyaalada meelihii qabyaalad qorax ee sii daayo in la ganaaxo afmiishaarka sheeganaya caaqile aan caaqile ahayn aabihi aan caaqile ahaan jirin awoow ahaan jirin suldaan aan ahaan jirin cuamada qaatay isna qabyaalada ku in isna sharci laga soo saaro sharciga labaad waxa weeye waa magac dilka weeye magac dilka magac laga dilayo intaasoo jeer baa madaxweyne waa tuug xaasiiskiis waa tuugo taasoo caday qofka duu tuugo ku sheego ودفاع متقنا ومقع دلك أحن بين آمك أدنو الشرع ولا صو صار لبلا قضب حدي أنا لصو صارين ده أو شرعي كلا علين ده أو قف كسل عايو ده قبل عنت اللي سكولة تجي ما كان لبلا قضبان بالأديك توصل وحقيقة ما كانوا كنا على ومدة نهي صومالي واحد شغل شان صومالي نجي مات سده وبسيدة لكم مات سده تيفين لكم مات سده دومركينا لكم مات سده saxaafadda laga maadsada waxuu dhanka kale injineer Faysal Cali Waraabe soo jeediyay xiligan in la xiro xuduudka Soomaaliland la wadaagta dalka Itoobiya maalin kasta waxa soo gala 100 qof oo Itoobiya dalkeena yaa ka badan safaaradana 10 qol ee siisaa maalintii waa inay 10 qol soo galaan 10 soo gala ee Soomaaliya loo gaala fiisada 10 way loo galaada waa in xad kala xira soo xadkeen laga ma xiro xoolaheena ma gali waayeen inaga waan ka xidhnaa qaadka ka joojina ma qudrada ka joojina bal cida dhimata wadanka afraad baynu nahay Itoobiya dhaqaalaha ay ka hesha suuqa ka hesha waka afraad Soomaaliya inoo $10 kama helo dhanka kale waxa uu injineer Faysal Cali Waraabe isla goobtan kaga guddoomiyay shaada sharaf dhalinyaro iskood isku xilqaantay isla markaana u garatay guddoomiyaha oo ka socday degmada Saylac ee gobolka Salal shaada sharaf ay tilmaameen inuu ku mutaystay isku hayntii sidoo kale isku ururinta shacbiga reer Soomaaliland waxaana halka hadallo kala duwan oo soo dhaweynay ka jeediyay dhalinyaradii shaada sharaftan soo qaaday gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe waxaan leenahay waa gudoomiye Soomaaliland waa gudoomiye ka muuqato inuu dadka uu simi karo waxaan leenahay gudoomiye hawsha qabanaysa waa hawl qaran anagu waxaan maanta soconaa bogaadin iyo tirtirsiin weey insha Allah taala halina gudoomiye hawsha ku jirta Allah kula galo qarnimada Soomaaliland saad ugu jeceshay anaguna diyaar ku kala joognaa maanta waxaan doonayna insha Allah sharaftaasi waxa weeye mid aan kuma musnaa ama qabadkiisii iyo soo hawlaha uu shaqeynaa min Saylac ilaa iyo buuhoodlaba uu mideeyaa waxaan leenahay xataa leenahay mideeyihii Soomaaliland Allah kuwaas waxay ka haysid isaguna dhankiisa gudoomiyuhu erayo kooban uga mahad celiyay qofkii wanaag sameeyana in la dhiiri geliya dadkeena ma aqoono dadkeenu inta xun buu iska sheegaa waan wali qof reer Soomaaliya wanaag ka sheegaya negative-ka ayuu ma sheegaa marka waan aad u xasantiin reer Salal وإذا قدومي إن شاء الله تعالى وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي عالمي سومالي كيبل مقالة درقيسة jaamacadda BSU ayaa kulan u qabatay bulshada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya taasi oo lagaga doodayo doorasho cod iyo qof ah ma ka dhici karta 2020ka Soomaaliya sidoo warbixinta warkaasi magaalada Garowe inooga soo diray wariyahayaga Ayuub Cabdikariin Cali kulankan oo halku dhig looga dhigay madasha wadaniga oo su'aalo lagu weydiinayo guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya waxa soo qaban qaabisay jaamacadda BSU oo kaashanaysa hay'adda Kalo munaasabadan ay ka soo qayb galeen guddiga doorashooyinka dalka maamulka jaamacadda BSU aqoon-yahano u dhundolol arrimaha siyaasadda dalka iyo arday dhigata jaamacadaha kala duwan ee Puntland inta ay socotay waxa diiradda lagu saaray shaqada ay hayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya caqabadaha hor yaala iyo in sanadka 2020ka ay doorasho ka dhici karto dalka Soomaaliya taasi ay shacabku soo dooranayaan hoggaanka dalka Soomaaliya
axmed shire axmed agaasime ku-xigeenka hay-adda kaalo ahna gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda BSU ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka loo qabtay isagoona tilmaamay inay sii wadi doonaan kulamada noocan ah barnaamijkan ka muuqata boorka waa madal muwaadiniinta loogu talagalay oo ay iska kaashadaan jaamacadda Puntland State University iyo hay'adda maxalliga ee kaalo madashan waxaa lagu talagalay in qaabkii la isku keeni lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo madaxda mandate-ka qaranka gacanta ku haya caawa waxaanu xagaan u fadhinaa arrimaha mandate-ka doorashooyinka madaxdii mas'uulka ka ahayd heer federaal waxaanu u baahannahay marka inaynu su'aalo badan iska weydiino waxa dadka muddo ay ku soo daaleen Vision 2016 oo ay ogeydeen meesha ku dhacday hadda ma sheekada oo kala dhici doonta in la dhaho waxaan higsadina 2020 oo haddana waxa sidii oo kale miyay ku noqon doontaa madasha ku soo dhawaada insha Allah noqon mayso tii ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay waxa inoo xigi doonaa shirar qaabkan oo kala madax kala duwan oo wadanka ama Garowe ha lagu qabto ama Muqdisho ha lagu qabto ama Kismaayo ha lagu qabto oo la isku keeni doono shacabka iyo madaxda heer federaal iyo heer maamul goboleed aqoon-yahan Saalim Saciid Saalim oo ka hadlay madashaasi waxa uu tilmaamay in dalka Soomaaliya aysan ka dhici karin doorasho hal qof iyo hal cod ah isagoona ku sababay jiritaanka caqabado badan oo horseedi kara inaysan dhicin doorasho xalaal ah wala dareemi karaa guddigu caqabadaha uu wajahayo caqabadaha qayb kamid hore u soo wajahay 2016 baad inayna gaarsiiyaan oo ku soo umay suurtagelin walow heestaasi ayba muuqatay markii xataa loo xilsaari inay suurtagelin oo laxankaasi uu muuqday laxan aan socon kara inuu yahay laakiin hadda laftigeeda oo 3 sano oo hadhayo xooga ayaa wali waxa muuqata caqabado badan oo hortaagan marka laga reebo in niyad wanaag uu jiro ama siyaasad political commitment ay jirto dawladda federaalku aad moodid inay ka go'an tahay inay 2020 wadanka la gaarsiyo doorashooyin maamuladuna ay la qabaan marka taa laga yimaado fursadda ah guddigu fursadda yar oo haysto waxa ka badan caqabadaha uu wajahayo guddigu waxa uu ka duulayo ama waxa uu rabo inuu wax ku kaxeeya waa fan uu ka sugayo banaanka dal intaasoo gobol u qaybsan oo ballaaran fan dibad laga sugayo laga yaabo in la helo inaan la helin ay ku xiran tahay dimuqraadiyadda lagu sameeyaa inay adag tahay in la sameeyo halka waa ka muuqata sidoo kale waxa muuqata in waxyaabaha conditionska ah wali aanay hirgelin suurtagal ma aha dalka in laga hirgeliyo doorashooyin xor oo xalaal ah Soomaaliya ka dhici karto doorasho dadweyne iyadoona ay jirto caqabado aad u fara badan oo ka soo wajahaya maamulada dalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan wax yar ku kabo walaalkay Saciid professor Sulub su'aalaha uu weydiiyay mid ugu horeyso waxaan diyaarinay istiraatiijiye 5 sano 2007 ilaa muxuu ahay 2021 waxaan u niraahday 20 doorasho dhacdo bil kadib inaan bilaawno say u dhacday doorashadaas qaldaadkii la galay caqabadihii dhacay waxa loo baahan yahay in la sameeyo iyo isu diyaarinta tii kale sharciyada loo baahan yahay in la bedelo saas marka step sanad kasta hadda laga bilaabo 2017 maanta meeshaan aan joogno oo halkaan aan ku la fadhino istiraatiijiyadeenna ku jirtay inaan gobolada tagno muxuu ahaay la soo qaybsano muxuu ahaay shaqadeena taabto anagu doorasho waa dhacaysa ma dhacayso anaga dhihi karno hadii ay maaragtay ay baaqanayso hadii dib loo dhigayo anaga dhihi karno iyo inaan announce gareyno doorashadii markii dhamaato inaan sheegno waqtiga doorashadu ay dhacayso maalinka saacada goobta inaan cayino meelaha lagu codeynayo goobaha inaan maaragtay xisbiyadii aan regular gareyno lacagahoodii iyo maaragtay sharciyadoodii usan tahay waxyaabaha hadda maanta aan isku fadhino doorasho waa dhacaysa ma dhacayso cid kale hadaa ka maqasho ka yeelin anaga umad naga maqli doonto insha Allah
wax kale waa been Cumar Abdirashiid Daraad waa nagu gaaday sida la sheegay 5 biri baan jirnay marka mana dhihi karin war wuxuu sheegay waa jira ma jiro hatta sharciga la sheegay markaas inaan akhrino ogaano hatta jeena looguma sameyn ayuu Cabdikariin Cali Soomaali Cable TV garowe hay-adda Ikhlas Foundation ayaa deeq kutuba u qaybisay madrasado iyo masaajida ku yaala magaalada Muqdisho sidoo noogu soo waramaya Cabdicasiis Riili in ka badan 5 dugsi quraan iyo masaajid ku yaala gobolka Banaadir iyo degmada Afgooy ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta ka faa'iideystay kutuba quraan oo ay gaarisay hay'adda Ikhlas Foundation waxaana qaar kamid ah maamuladii masaajida iyo dugsiyadaasi ee kutubada la gudoonsiyay ka mahad celiyeen kutubadan maanta ka soo gaaray Ikhlas Foundation macallimiinta qaar ayaa sheegay in dugsiyadu aad kutubada ay ugu baahnayeen ardayda oo qaarkood agoon ay yihiin ay wax ku baranayeen kutuba jeexan oo suuradaha qaar ay ka go'an yihiin waxayna tilmaameen in iminka ay dadaal xoogan u gali doonaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen xifradda barashada dhanka quraanka ee ardaydaasi maadaama ay ka aruuriyeen kutubadii jeexna oo ardaydu ay horey wax uga baran jireen kuwa Ikhlas iminka ay gaarsiisana dib u gudoonsiiyeen wabanka mahadiliyaan hay'adda al-Ikhlas leero إن شاء الله تعالى ومن ما هذيان كتب أو مانت أو نشانتي أو أرديداس أن كهيني أو دكسياس أو علم أغون إيو بدن أو نشانة درادي أن كما هذيان أن كما هذيان إن شاء الله إن سياس درادي ويبقى أو نتي أو محدد إيو عاوين أكفلان إني دكسيا أو نيندسانو أو دكسيا دسندس إني عاوين والكانون هاي سنة دكسيا أرجعت الكاس خيال كتاب أبو بحنا مسايد كها هاي كتاب آدي آد أبو بحنا كتاب هذانا مارته وحبذان أبو بحنا هاي كتاب بدن إيش سي كتاب أحاديث أو كلا آد أبو بحنا وحنا كلا أبو بحنا جوجل أبو بحنا إذا نفسر كده جوجل شيء مسايدك وحنا كلا أبو بحنا هاي قانة أو الجور في كتابه أبو بحنا مركز إن شاء الله جزاك الله خيرا ومع سنتين وآدي آد أبو تداشن لله رب العالمين إلى ما هذا إسكاله إن شاء الله دكسي وحاليرا صلاح الدين الأيوبي كتبت الحلي وبهنان أو إلهي نسوى في جي الحمد لله أدي إخلاصنا خير بدن الله سيو أنا جن إلهي كوي عمل في الدين الله نقدره إن شاء الله تاس أيوك سكوبيا عيالك كتبت هرؤي هستين وكتب أو ما شاء الله أو مقيسي بقرة حق هذا كم بقى جلات قيمة نقولين أو كتب أد رمضان حلق وفيعنا نسوق جارسيان إن شاء الله. أنا عثمان مقعي عثمان محمد حسن وحاول عليا هيدا إخلاص دكسي أنا ركتني صلاح الدين أيوب أنا سوق جارسيسي بخل كتاب أنا أدو بانيني كو حايسني كتب أو جحمين أو جيسا كبيرة حدني محمد علينا يا هيدي إخلاص هيدي إخلاص وحنا نسوق رسالة كتابة أنا وكبلوا مجا جابر عمر عبدي كلش كحوا سومالي بيبل سومالي بادين سومالي بادين وكلش يسكول جير أوغانه Ikhlas Foundation ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka ka waday dadaalo xoogan oo lagu jiro sidii loo afurin lahaa dadka Soomaan iyo deeq kale oo raashin oo la gaarsiinayo qaar kamid ah dadka barakacayaasha ee ku jira xeryaha magaalka banaankiisa ah iyo gudaha magaalada Muqdisho intaba kuwani waa qaar kamid ah ardaydii baranaysa Quraanka Kariimka ee maanta kutubada la gudoonsiiyay oo isla markiiba bilaabay akhrinta kutubada Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Cabdicasiis Soomaali Cable Muqdisho goobaha loogu talagalay in lagu tukado salaada ciida ee xaafadda Islii ku yaala ayaa la shaaciyay sidoo warbixinta warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga Cabdilaahi Axmed Cali waxaa si rasmi ah loo shaaciyay goobaha lagu dukan doono salaada ciida ee ku yaala xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii iyadoo la diyaariyay gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaan ambulance Sheekh Farxaan Cali Dhimbil ayaa sheegay goobaha lagu dukan doono inay ka mid yihiin garoomada Burhaan State iyo Sida Cali Kalaab garoomadaasi ayaa waxaana lagu diyaariyay dhalinyaro safafka sixi doona bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala zalimin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a ihsan ila yawmiddin wa ba'd
ilaahay subxaana wa tacaala na abuurtay isagu khaaliqa koonka mahad iska leh waxaan tilmaami doonaa insha allahu tacaala sida looga ciidi doono magaalada Nairobi waxaa loogu talagalay labada garoon ee ugu waaweyn ee ciida loogu talagalay waa Sayid Cali Kalaam iyo Burhan State Burhan State waxaa tujin doona insha allahu tacaala Sheekh Shibile Sayid Cali Kalaamna waxaa tujin doona Fatxuddin Dankal labada sheekh ayaa labada garoon kala tujin doona runtii waxaa loogu talagalay garoomadaas insha allahu tacaala dadka ku nool magaalada Nairobi ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fududeeyo waxaa kaloo loogu talagalay ambalaasyo iyo dhalinyaro shaqeynaysa dhalinyaradaas waxay qaban doonaan waxay sameyn doonaan inay sufuufta inoo safaan inay hagaajiyaan in ay isku dayaan qofka dayacan ee meel aan ku habboonayn fadhiista inay ka kiciyaan oo dhahaan meel fiican fadhiiso ay ku hagaan meeshuu fadhiisan lahaa waxaan markaa ka codsanaynaa dadka muslimiinta ee maalintaas soo ciidaya ee ku nool magaalada Nairobi inay isku dayaan dadka inay u hoggaansamaan oo marka la yiraahdo meeshan ka kac kuguma habboona inaad ka adeecdo waxa kaloo aan ugu talagalay ambalaasyada si qofka haddii dhib u gaadho waxaa dhici kartaa inay yani maaragtay qof neef haya u yimaado waqtiga ay qabato inay dadka la soo xiriiraan wax walba oo dhaca oo aad aragto qof muslim oo dhibaataysan markaad aragto dadka jaakadaha leh la soo xiriira ama insha allahu tacaala waxaan ku qori doonaa laba telefoonada haddaad shaashada ka aragtaan isku day inaad soo wacdaan oo aad sii qorataan waxaan kaloo iclaaminaynaa Burhan State waxaa wax looga ururin doonaa masaajidka sigiska marka yani maaragtay rabadaan ay baxdo ayaa insha allahu tacaala waxaa la dumin doonaa oo la dhisi doonaa qofka muslimka marka ha isku dayo in wixii uu awoodo maxaa yeelay beydkii ilaahay baa la dhisayaa waxaa ku darsado adayna dan kuu tahay haddaad wax ku darsato yani ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar buu kaa siinaya adayna dan kuu tahay oo naftaada yani waa sadaqa kuu socon doonta marka isku day 10,000 20,000 30,000 waxaad awoodo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey wax ka bixi marka Sayid Cali Kalaamna waa laga ururin doonaa Al-Amiin masaajidka la yiraahdo oo isna loo gadayo meel ayaa insha allahu tacaala wax looga ururin doonaa marka qofka muslimka garoonku doonaba ha ku tukada ha isku dayo masaajidada ilaahay ee wax loo qabanayo inuu wax ku darsado Cabdullaahi Axmed Cali telefishinka Somali Cable Nairobi u diyaar garowga maalinta Ciidul Fidriga ayaa si ballaaran looga dareemayaa magaalada Kismaayo sidoo faahfaahinta warkaasi inoogu soo diray wariyahayaga Saabir Cabdiqaadir Warsame Honasti magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga maalinta Ciidda iyadoo dadweyne aad u tiro badan ay buux dhaafiyeen suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo gadanaya dharka ciidda si ay farxadda ula qaybsadaan dadweynaha kale qaar ka mid ah ganacsatada ku sugan suuqyada kala duwan ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan oo diyaar garowga maalinta ciidda iyo mashquulka farada badan ee laga dareemayo suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo aad u jeedid waa ma sha Allah diyaar garowga waxa weeye ciidda aad iyo aad bay u fiican yihiin dadku waa kala adeeganayaan boqolkiiba boqol waxaan dhihi karnaa waa ma sha Allah arkaysaa ciyaalkii dadkii waaweynaa waxa waaye ii sheegeen dhammaan waa la wada ciidaya waa la wada farxaya walaalayaal waxa weeye si fiican baan u iideynaa waxa weeye alaabta si fiican baan nala gadanayaa ma sha Allah bishaan bil barakeysan weeye ma sha Allah qayr badan Allah siiyo waa si fiican baan u iideynaa dharka si fiican baan nala gadanayaa saraawiisha qiimo fiican baan nala gadanayaa shaarka sidoo kale qiimo fiican $10 $14 aan gadnaa marka ma sha Allah aad iyo aad baan martay aan u iideynaa marka waxaan maleynayaa beriya iido inta baysan maleynayaa waa bilqayr ma sha Allah waad arkaysaan magaalada Kismaayo sida wanaagsan ee amniga iyo kala dambeynta iyo handii ay ku roon yahay xaqul ciidka loo kala qaadanayo
waxaan dadka meesha dhan waa dadkii u soo barnaambaxay inay iidaan aad iyo aad baan idinkugu hambalyaynaa dhanka saxafiyiinta ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa saalax cabduqaadir xasan waxaan ahay harqaanle weyn magaaladan jubbada waxaan dareemaynaa jaamkii ugu dambeysay ee magaalada ka socda sida dhinaca dadweynaha harqaamanka iyo bacadlayaasha waxaan kaleetoon ilaahay nagu rajaynaynaa ciidan ciideeda in ilaahay nabad nagu gaarsiiyo bifadlillaah ma garanaysaayo soonkan xaggiisana kolleyta waxaan u malaynayaa si nabad iyo barwaaqaan ku ciiday si nabad baan ku soonnay soonkeennana wax dhibaato hadda aan dareemayno ma jirto laakiin hadda waxaa jirta jaamkii ugu darnaa bulshadii xaggeedii aad baa laisku jiirayaa haddana waa nidaamkana aad buu u wanaagsan yahay wax qalalaase hadda nagu haya ma jiraan dadweynihii si nidaam bay u kula socdaa waxaan leeyahay dadweynaha ciid wanaagsan oo ciid wanaagsan si wanaagsanna ku ciida baarakallaahu fiikum saabir cabdulqaadir rusme saabir honesty telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo guud ahaanba qodob wareedkaasi waxa uu guniya gunaanad u ahaa war waxaanu idinka haynay daafaha caalamka iyo dhulalka Soomaalida warkuna waxa uu idinka imanayay istuudiyaha uu telefishanku ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Aydruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya tan intaan ku kulmayno warkan warka xiga aniga iyo akhyaartii kala qayb qaadatay dhamaantayo waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh